sida loo akhriyo lacagaha inaad iyadana aqoon u leedahay oo aad si buuxda u ogtahay iyo gunaanad oo ah inaan soo gebagabayno gunaanadnana casharka waxaan kugu hormaraynaa qodobka koowaad qodobka koowaad waxaan qeexaynaa sababta looga ganacsado forex iyo sababtaad adigu uga ganacsanaysid forex iyo faa'iidada kugu jirta waa maxay inaad fahantid oo fahan qoto dheer ka heshid kow in aad isku sarriftid laba lacagood oo qiimahoodu kala duwan yahay adoo adeegsanaya sal iyo buy waa sababta aad suuqan uga faa'iidaysid in aad isku sarriftid laba lacagood oo qiimahoodu kala duwan yahay adiga oo adeegsanaya sal iyo buy lacag qiimaheedu marka uu hooseeyo waan soo iibsanaa lacag qiimaheedu marka uu sarreeyana waan iska iibinaa taas waa inaad mar walba niyadda ku haysaa lacag qiimaheedu marka uu hooseeyo waan soo iibsanaa lacag qiimaheedu marka uu sarreeyana waan iska iibinaa okay qodobka labaad haddaa u galno ama qeexidda labaad sariflayaasha suuqa forex marka ay lacag qiimaheedu hooseyso way soo iibsadaan marka ay lacag qiimaheedu sarreysana way iska iibiyaan tusaale 2003 baa waxaad iibsatay boos waxaad ka iibsatay magaalada aad ku nooshahay balse 2019 baa hadda la marayaa booska 2003 iibsatay qiimihii aad waqtigaa ku iibsatay qiimo ka qaalisan buu hadda marayaa yaa faa'iido ku jira adaa faa'iido ku jira booska aduu qiimo hoosaa kusoo iibsatay balse maxaa iskaga iibisay qiimo sare waqtigaa maxaa qiimo hoose ugu iibsatay sababtoo ah waqtigaas boosaska qiimahooda saas ahaa oo baahi badanba looma qabin oo wixii way badnaayeen balse markii wixii baahidii loo qabay ay badatay oo ay qiimo yeesheen markaas qiimihii baa saa'idaya oo badanaya tusaale kale aan kuu soo qaado gaari baad soo iibsatay gaariga aad soo iibsatay waxaad iibsatay 2005 balse waxaad isticmaalaysay ilaa 2019 balse waa tagtay waa naashnaashtay waa qurxisay gaarigii wax walba taayiradii baa ka bedeshay waa naashnaashtay si fiican ba u qurxisay kadibna waxaad dhigtay suuqa kala iibsiga qiimihii aad gaariga ku soo iibsatay qiimo ka sareeya ba ku iibsatay sababtoo ah yaa markaas faa'iido ku jira adiga faa'iido ku jira sababta qiimihii laga siiyay iyo qiimaha aad ku iibisaa kala duwan si kale haddaan kugu dhigo oo tusaale kale kuu soo qaado magaalada aad ku nooshahay Soomaaliya ama haddii aad ku noolayd Soomaaliya ood xasuusatid waxaa jira Ramadaanka in lagu suxuurto sarreen ama soor iyo wixii la mid ah waxaa loo baahan yahay caano marka si caanahaas loogu darsado suxuurta kaba soo qaad magaalada aad joogto waa magaalo aad u baaxad weyn balse caanihii baa ka dhammaaday hal islaam baa waxay haysaa 3 jirkaan oo caana balse magaalada waxa ka jirta baahi loo qabo caanaha islaantaasina waxa haysaa 3 jirkaan waxay ku khasban tahay marka islaantaasi iyadoo ka faa'iideysanaysa baahida loo qabo caanaha inay qiimihii ay kor u qaato oo qiimo sare ku iibisa caanihii sababtoo ah maxaa batay baahidii loo qabay caanaha badatay markaas dadku wuxuu ku khasbay inay iibsadaan balse islaantani markaa dib u fiirisid qiimaha ay ku soo iibsatay caanaha qiimo hoose buu ah balse qiimo sare iskaga iibisay annagu marka suuqa kana sidoo kale aan sameynaa lacag qiimaheedu markuu hooseeyo waa soo iibsanaa qiimaheedu markuu kor u kacana waa iska iibinaa annagoo adeegsanayna sell iyo buy waxaan filayaa inaad ila fahantay faa'iidada iyo sida dadku uga faa'iidaan suuqa kan iyagoo adeegsanaya teleefankooda iyo kombiyuutarkooda iyo internet gurigoodana jooga inay lacagihii adduunka isku bedelayaan iyagoo adeegsanaya cilmigooda iyo xirfadooda iyo falanqayntii suuqa oo ah xirfad hadduu qofku barto uu meel walba joogo lacag ku samaynayo okay waxaan dul istaagaynaa marka qodobada oo ah 2 iyo 3 iyo 4 haddaan ku hormarno qodobka 2 lacagaha awoodda leh waa 8 lacagood lacagaha
awoodda leh suuqa forex marka la joogo waa 8 lacagood waa inay mar walba kuu suntan yihiin kuuna calaamadsan yihiin 8 lacagood waa 8 lacagood oo saameyn gooniya leh awoodna ku leh suuqa kani waa 8 lacagood oo haddii uu qofku 8 lacagood uu barto lacagaha ay hogaaminaya ama u dambeeya ama ku jiraan mar walbana uu la socdo dabeecadahooda si gooniyana uga warqabo uu waxa weeye suuqa kan aad u fahmayo falanqayntiisana uu aad mar walba ula soconayo haddii aad 8 lacagood baratid oo fahantid kadib lacagaha kale iyo sida isku raacaanna waa ka hadli doonaa iyagana waa fahmi doontaa balse 8 lacagood aan idin fahansiiyo waxa loo soo gaabiyey marka USD loo soo gaabiyey waxa loo soo gaabiyey inta tan oo ah United States waxa weeye dollar okay oo mid walba waxa laga soo qaatay U-da waxa laga soo qaatay United-kii S-da waxa laga soo qaatay States-kii maadaama ay ka kooban tahay States D-da waxa loo soo qaatay dollar-kii halkana waa eurodii oo loo soo qaatay waatan eurozone-kii wadamada laga isticmaalo eurodii okay GBP oo iyadana loo soo gaabiyey sida tan CHF oo iyadana loo soo gaabiyey sida tan sababta wax walba loo soo gaasaan ku helaysa AUD oo iyadana loo soo gaabiyey sida tan CAD oo iyadana loo soo gaabiyey tabta tan NCD oo iyadana loo soo gaabiyey sida tan waa fahmaysaa yani Canadian waxa loo soo gaabiyey waa tan waa Canadian dollar baa loo soo gaabiyey hadda ujeedaan NCD waa tan iyada wax loo soo gaabiyey New Zealand dollar JPY iyadana waa tan Japanese yen-ka loo soo gaabiyey mid walba iyo waxa lacagaha kan shortiga arkisid oo gaagaaban sababaha loo soo gaabiyey waa tan mid walba inaad sida ku fahantid tanna waxa weeye lacagaha awoodda leh waa 8 lacagood 8 lacagood marka aad meel ku qoratid oo awoodda leh kadib waxaan ka hadlaynaa sidee isku raacaan lacaguhu qaabka ay isku raacaan 28 lacagood baa ka hadlaynaa kadibna tusaalaan bixinaynaa tusaalaha koowaad haddaan ku hormarno qaabka ay u mataamoobaan 28 lacagood tusaale halkan waxaan ku soo qornay 8 lacagood oo awoodda leh 8 lacagood marka tusaale kale sida isku raacaya waa sida tan eurodii waa tan waxaan idhahnaa euro CAD-na waa tan CAD eurodii baa hogaaminaysa waa ka hadli doonaa lacagaha base-ka iyo lacagaha waxa weeye qaybtan kale waad arki doontaan qaybtan asaasiyaadka kaga hadli doonaa waa sida ay lacaguhu isku raacaan tan markaad fiirisid iyadana waa maxay waa waxa weeye waa lacagtii yen-ka ama Japan waxa loo soo gaabiyey JPY iyo New Zealand baa hogaaminaysa lacagta tanna JPY-na way dambaysaa oo maxay isku noqonayaan markii la isku daro NCD JPY tanna markii la isku daro maxay noqonayaan EuroCAD marka waa qaababka ugu fudud oo sida isku raacay 8 lacagood baa isku raacay okay sidaas iskugu soo laabanaya waxaan ku tusayaa marka tusaalan ka siinaya sida ay isku raacaan lacaguhu 8 lacagood oo awoodda leh oo kuwa kan 8 lacagood 8 lacagood markaad fiirisid waa kuwan saan isku soo laabanaya 8 lacagood fiiri 28 lacagood oo mataanaysan okay markaad fiirisid AUD CAD waxaad halkan ku arkaysaa AUD halkan waxa ku arkaysaa CAD halkan waxa ku arkaysaa AUD CHF halkan waxa ku arkaysaa AUD CHF baa ku arkaysaa halkan waxa ku arkaysaa AUD JPY halkan waxa ku arkaysaa AUD JPY baa ku arkaysaa iyadana waa tan israacay AUD NCD baa arkaysaa AUD iyo NCD-na waa kan waxa arkaysaa AUD USD iyadana waa tan AUD iyo USD maxaan waa AUD-gii oo isku lamaan oo lagu mataameeyay lacagihii 8 lacagood halkan kadib waxaan gelaynaa eurodii waxa arkaysaa misna 8 lacagood ku mataanaysan baad halkan ka arkaysaa EuroCAD oo halkan ku mataanaysan Euro JPY oo yen-ki ku mataanaysan waxa arkaysaa Euro CHF oo CHF ku matan saas waa eurodii GBP-dii iyadoo ku mataansan kadib waxaan gelaynaa CAD baan gelaynaa oo ah iyaduna lacagta waxa weeye Canadian-kii baan gelaynaa iyadana waxa arkaysaa iyadoo ku mataanaysan lacagihii kale halkanaad tegaysaa iyagana waxa arkaysaa lacagihii GBP oo iyaguna ku mataanaysan 8 lacagood halkanaad tegaynaa NCD iyagana waxa arkaysaa lacagihii isku soo laabanay kadib USD baa tegaysaa waxa arkaysaa iyagoo
isku mataanaysan oo isku soo laalaabanaya. Marka qaabka kani waa qaabka ay lacaguhu isku raacaan ama la iskugu mataaneeyo 28kii lacagood. Waana muhiim mar walba inaad fahmaysid qaabka ay lacaguhu isku raacayaan. Mar walba oo aad fahantid qaabka ay lacaguhu isku raacayaan waa mar walba oo sida la iskugu xirayo sababta ka dambeysay 8 lacagood awood leh sidaas oo dhan. Kadibna sida lacagihii u kala soocatid hadhowna qaabka loo kala saaro marka waxaan la isgareynaysid qaybta sare ee casharkan kaga hadli doonaa saaxiibayaal. Waana muhiim inaad fahantid sirta tan iyo qaababka ay lacaguhu san yihiin adigoona xog badan raadin balse inta tan iyo nuxurka ah suuqan oo dhan waa baran kartaa yes laakiin waxa muhiim ah maxaan anigu ku shaqaysanaya inaad baratid. waxa cilmi adduunka yaallo oo dhan qofna ma baran karo balse qofku wuxuu baran karaa wax uu ku takhasuso oo horumarka gaara. Suuqan forex-na waa cilmi baaxad weyn balse sirta kaliya inaad heshid baa muhiim ah. sirta kaliya markaad heshid waxa weeye waxa ku sameynaysaa noloshaada isbedel ta faamilkaaga iyo taadaba iyo ta qoyskaaga. Haddaan guda galno markaa inta tan waxa weeye saaxiibayaal waa casharkii asaasiyaadka qaybtii labaad. waxaan gelaynaa gunaanadka waxaan idinkula talinayaa mar walba wax bilaabaysa inaad joogtaysid joogtayn lagu daray ku celcelin inaad ku celcelisid wixii casharadii iyo dadaalkii iyo ficilkii aada marna lagu arag mar aad caajisay mar inaad la timaado joogtayn casharkii jadwal u samaysatid waxaa fahmi weyda ku celceshatid kadib aad la timaado ku celcelin waxaa la soo baxaya faham qoto dheer inaad suuqa sirtiisa oo dhan fahantid. mahadsantihiin mudanayaal iyo murwooyin meel walba oo daafaha dunida ka joogtaan guuleysta mar iyo marar badanba sirtii suuqa forex-na daruusha ka dambeeyay